السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada meel walba joogtaan waa mar kale iyo muuqaal cusub. bilis hadii ay ugu cusub tahay ay ku tahay markooda ay timaadid subscribe sar channelka gambaleelka furo si mar walba muuqaaladeeda ee si toos ah ku soo gaaraan. hadii awl ay la joogtay like ta share-ka iyo wixii fikradaada ah halmaamin insha Allah. saddex shay oo burburiyo nolosha cunugaaga ka bilaabato maalinku jiro 4 sano ilaa 10 sano inta u dhaxayso hadii ay jiraan caruur yaryar oo ku joogo intaas da'daasna ay jiraan aad buu mowduucan ku quseeyaa. soo dhawow koobkaaga biyaha ah soo qaado ama koobkaaga shaaha ah si wacanna u dhageyso. waxaan rajeynayaa hooyooyinka inta badan inay ka faa'iideystaan barnaamijkan. waa barnaamij ay hooyooyinka si aad ah ay ugu baahan yihiin ayaan dhihi karaa. qodobka koowaad oo saddexda qaybood ka tirsan waxa waaye in ilmaha laga dhigo ilma aan waxba loo dirin oo aan shaqeysanin. cunuga wuxuu ka qaadi karaa maalinkuu jiro 4 sano hadaadan u dirin gabar haday tahay haduu wiil yahay aadan u dirin hoolaha fudfudud ama shaqooyinka fudfudud waxaad ogaataa cunugaas kalsooni inuusan isku qabi doonin inuu noqonayo cunug wax ma qabsada ah mar walba u baahan in adiga aad kabtid dhar aad u gelisid suulida aad la gashid wax walba adiga la'aanta uusan sameysan ayuu noqonayaa. cunug mid kale wuxuu noqonayaa caqli ahaan aad uga hooseeyo ilmaha kale oo shaqooyinka fudfudud loo diro. ma ogtihiin hooyooyin in caruurta shaqada markii la baro ay tahay qayb kamid ah koriimadooda ama maskaxdooda ay isfurfureyso ay sameynayaan ibdaac ama hab curin cusub oo kale ay sameynayaan. waa waxyaabo aad hooyooyinka ay uga mashquulsan yihiin ama aysan u baranin in ilmaha aysan u dirin gabi ahaanba shaqo. hooyooyinkii hore markii loo fiiriyo cunuga 4 sano markuu jiro wuxuu ahaa cunug lagu aamino wax walba oo loo dhiibto oo xisaabtamayo. maanta meeshii ilmaha ay yihiin ilmo aad looga dhigo ciyaal aan waxba kala garanaynin ama waxba aan kala ogeyn looga dhigo. waxaadna ogaataa in cunugaaga aad ka xirxirtay albaab kasto oo caqligiisa uu isku furfuri lahaa. u daa ilmaha shaqooyinka ha ka hor istaagin wax walba oo fudud u dir sida alaabta inay dhaqaan inay meelaha xaaqaan in ay kobaha aruuriyaan in dharkooda ay laalaabtaan dharkooda inay gashtaan inay diyaarsadaan dharkay wax ku bara lahaayeen in cuntada aad u dhiibtid aad tiraadid gur si uu ku fahmo wixii calooshiisa galayo iyo wixii extra ah ka dheer. dhamaan waxyaabahaas waa waxyaabo aad ku saacidayo ilmahaagana ka dhigayo ilmo maasha Allah ah degan wax badan fahmo maskaxdiisa furfuranto. gabar haday tahay kuma sii jirto gabar aad u caqli badan kala arag ah ayay noqonaysaa. bar timahooda inay dhaqmaan bar timahooda inay furfurtaan bar inay shanleystaan bar inay dharkooda xirtaan bar in dharkooda ay laalaabtaan bar guriga howshiisa inay ka caawiyaan waqtiga ay wax baranayaan ma ahan waqtiga kale. waxaad arki doontaa ilmahaas oo noloshooda si aad ah ay uga qayb qaadatay waxyaabahaas aad u sameeyay oo yaryar. koriimadooda laf ahaaneed xitaa faa'iido badan ayaa ugu jirto lafahooda ayaa ku xoogaabayo. hooyooyin badan oo waxaan arkay aad u weyn u dhaliilsan hooyooyinka ilmaha u diro shaqooyinka fudfudud. kuma lihi ilmahaaga dhabarka ka jabi shaqooyin culus u dir laakiin waa in aad u diri kartid waxyaabaha fudfudud aan ku soo sheegay si ay uga qayb qaataan nolosha guriga. mid kale ay u dareemaan mas'uuliyad. cunuga maalinka 10 sano uu jiro waa in uu yahay cunug mas'uul ah aad gurigaas ku aamini kartid wax walba uu kala og yahay wax walba uu ku sameynayo waa in aad kala og tahay. ilmaha badankooda Soomaalida aad u weyn ayaa waayii hore looga dhigi jiray ilmo mas'uuliyad xambaari karo walow aad mas'uuliyad ka tan weyn ayaa la saari jiray. saas ay tahay ma isin ku qasaaroobi jirin oo wax badan ay ka bara jireen wayna xasuusan jireen 3 jirkooda 4 jirkooda wixii ay soo sameey jireen. meesha maanta ilmaha yaryar oo hadda jiro jiilka hadda jiro aysan gabi ahaanba noloshoodii hore aad ay u halmaamaan laana mar walba oo aad sameeyid waxyaabo saameyn maskaxdaada ku yeelanayo markasta maskaxda ma ka go'ayso oo waxay ku noqonaysaa mid safe ah u dira ilmaha
hoosha fudud waxyaabo badan ayay ka saacidaysaa koriimadooda. ilmaha abiteedka ka xiran xitaa aad buu abiteedkooda u furmayaa, aad bay u noqonayaan ilmo active ah, ilmo mas-uuliyad qaaday, ilmo og in waxyaabaha qaar aan lagu ciyaarin, ilmo og waxyaabaha qaar in ay tahay inay sameeyaan oo si fiican jibaadka aad u dirta si fiican ay uga soo baxaan. ha sameyn cunugaaga inaad ka dhigtid cunug waxma qabsada ah, aad afka cuntada u gelisid, aad dharkiisa u diyaarisid, aad wax walbo noloshiisa kamid ah aad u sameydid maalinku jiro 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxayso. mafahmaysiin ilmaha caqli bay leeyihiin, wax kasta dareensan yihiin, waqtiga xitaa waxbarashada ay ugu fiican yihiin ayay ku jiraan. caruurta markay 4 sano jiraan waa aad ay active u yihiin, maskaxdooda si aad ah ay u shaqeynaysa, jirkooda ka faa'iideysta. marka habka labaad oo aan rabo inaan ku sheego waa cunugaaga in aad u deysid waxyaabaha qaar aad isleedahay dhib ayaa ka soo gaari karo. yacni dhibka ayaa laba kala ah, dhib khatar weyn ah iyo dhib iska normal ah. sida howl ayuu qaba waayay, ha fikiro, markasto markuu fikiro xal ayuu keensanayaa. ha ku saacidin, ku laaba dheh si maskaxdiisa ay u furfuranto, uu u noqdo cunug isku kalsoon, beri ka maalin meel iska soo saari karo. habka saddexaad oo ah ilmaha in aadan dadka hortiisa aadan mar walba kula hadlin ama aadan ku bahdilin oo aadan ku qeylin, ku canaanan, ku dilin. mar walba ilmaha dadka korkooda lagula qeyliyo ama lagu dilo ama lagu aflagaadeeyo waxaad ogaataa niyad jab aad u badan inay maskaxdooda soo gaarayso, saameyn aad u badanna koriimadooda ay ka qayb qaadan karto. ka jooji caruurtaada dadka hortiisa aad ku canaaninaysid, waxyaabaha qaldanna aad kula sameynaysid. mar walba u fiirso meelo xoogaa jabigooda degan yahay aan looga jeedin. haddii aad canaaninaysid ku canaano, waxna oga sheeg halkaas. mar walba waxaa haboon sidaas inaad u sameydid, maxaa yeelay cunugaaga wuxuu dareemi karaa markii sidaas aad u sameydid kalsooni aad u badan, oo wuxuu dareemayaa in hooyadiis ama aabihiisa ama waalidiintiisa ay aad u xushmeynayaan. qalad haduu galana awlaada hortiisa ama dadka kale oo qaraabada ah ama ay qof aadan ka horbahdilin, wuxuu dareemayaa in uu waxaasoo dhan uu ka sharaf badan yahay, usana u qalmin. u sheeg ilmahaaga wax walba inay qabsan karaan. hooyo walbo, aabe kasto waa in caruurta ay waqti geliyaan. caruurta markii waqti la geliyo waxa meeshaas ka soo baxayo ilmo dhan walbo ka diyaarsan, dhan walbo u baahan in bulshada beri ka maalin ay anfacaan, wax badanna ay kusoo kordhiyaan. akhlaaqiyaadka guriga caruurta laga soxo, ka joojiya ilmaha waxyaabahan mar walba dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan. markastoo cunugaaga uu yahay cunug waxbarashadii ku fiican, waxaad ogaataa waa ilmaha mar walba waalidiintooda ay gacanta qabtaan, ay u sheegaan waxyaabaha fiican ay ku hormari karaan iyo waxyaabaha dhibaatooyinka kasoo gaari karo. markastoo ilmaha ay faraxsan yihiin waa inaad u sheegtid waxyaabaha ugu wanaagsan ay qabteen maalinkoodaas, waana in aad ka wareysatid axwaasha waxbarashada ay dhigtaan iyo hadaysan dhigan. intaba mar walba cunugaaga niyadiisa waxa ku jiro waa in aad ogaatid, si waxyaabaha qaldan aad uga saxdid, waxyaabaha uu ku saxsan yahana aad mar walba ku dhiirigelisid in uu sidaas si ka wanaagsan u sameeyo. hooyooyinka waa inta ugu badan ilmaha dadka hayo, ma ahan in ay iska dhigaan bilaa mas-uuliyeed. ilmahaaga ogaaw gabaray, waxaad ku ogaa kartaa qodobada aan kuu soo sheegay, aad bayna ku saacidayaan. oo waan hubaa hooyooyinka ilmaha dayaco, maqano joogaha ah, guriga joogo balse caruurtooda aysan waxba ka garanaynin. haddii aad tahay hooyadaas, hadhowna aad la soo ordi doontid cunugeyga wax ma cuno, cunugeyga koriimadiisa waa eber, cunugeyga waxbuu bartaa. haddaba barnaamijkan hadaadan ka faa'iideysan karin iskagala gudub, maxaa yeelay hooyooyinka waxaan ugu talagalay jecel mar walba inay ka faa'iideystaan fursadahan oo kale, si aad ahna caruurtooda ay caawinaad uga siiyaan. halkan mar walba aad cunugaaga aad bartid waxyaabaha wanaagsan, aad mar walba kala dagaalantid waxyaabaha xun, waxaad ogaataa ilmahaas inay noqonayaan ilmo perfect ah, wax walba oo wanaagsanna ku hormaray. diinta bar ilmaha wax walba waxaa ka horeeya
sheekeeyo diinta qur-aanka bar, uga sheekeey qisooyinka ambiyada, uga sheekeey dadka wanaagsanay taariikhdooda si ay u noqdaan ilmo dhaxalgal ah, wax wanaagsanna kuu soo kordhiyo, kuna daysado dadka wanaagsanay oo naga horeeyay wadadoodana maro. adigana wanaag ha ka arkaan caruurtaada, mar walbo wanaag fara badan tusi si ay u dareemaan kalsooni aad u badan. waxaan rajeynayaa in hooyo walbo iyo dhammaan waalidiinta ay aad uga faa'iideysteen intii aan isla soconay barnaamijkan. waxaan rajeynayaa hooyooyinka meel sare inay gaarsiiyaan gabar walbo oo haysato caruur 4 sano ka weyn u sheergaray si ay uga faa'iido. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.